ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay alla leedahay waryaaraay iswaraysto waxaalkeeda adduunkiiyo waddankiinaba eego halkay u socdaan iyo waaqacaynu ku noolnay waxa la iska su'aalo war maylaraylankii war sugu waayey waran musugow war waxaa la yidhi dadaan waxba dooro karin waxbana loo doori karin wax dooranna daysa karin danseegaad wada tihiin aryaadhaha idinkoon isbaalin waxaa hore loo yidhi mar wixii iga gaaray inantaas maharkeeda dib laysoo mari maayo war waxaa kaloo la yidhi waxaan doorannaa naqaan waxaan diidnaa naqaan dad baa nahay aadamaa dunteennaa gobannima lacagaan qaadanaa naqaan miyuu yidhi ninkaas dhuuntaan wax ka maqalnaa gacantana walaxaan ka aragnaa miyuu yidhi warna miyaa weligiinba doorasho kala fada laakiin aan may xaqiiqadii asiin haaye Soomaali madawiino horan dooratii markale inoon dooradaana war Soomaalida hore ma naga tag aryaadhaha idinkoon isbaalin Soomaaliya anigu waxaan dhihi lahay oo dalka ninkii dib u dhisa dadweyne maad u dooratan dalka ninkii dib u dhisa dadweyne maad u dooratan haye xooga wadaniinta ama farmaajo uma leeyaan he waa su'aal dacweyne dalka yaa iska leh warnimaya waxaan leeyahay weli gaabis badan baa ka jira geedi socodkii ammaankii gacmaha uguma jira gobolladeenni gogolxaanna uma ay samayn food si loo galo laba gebi dhexdood bay bulshadu guura socotaaye allahayow adigu noo gargaar guulla waadii aryaadhaha ma waadan maqli jirin heesti ahayd geedahan ka baqaya goormaan socdaa xaggeen gaari karaya war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dawladihii hore xilligan oo kale doorashadu iyo qaabkeedu way diyaarsanaayeen balse maanta waxaa nasiib darro ah in weli la taagan yahay doorasho ma dhici karta mise ma dhici karto oo aan la ogeyn sida ay wax noqonayaan wuxuu kaloo yidhi cayaarta maaradoonka ah waxay leedahay meel uu xarigga ku go'o hadda xarigga meeshuu ku go'ay way noo muuqataa madaxweyne farmaajo bandhiidkiisa inta uga harsan waa madaxweyne balse markii uu waqtigu dhammaado talada waa lala faragelin doonaa warna miyaa bahasha u quwaha ilaa ay ka dhalaasa suga madaxweyne sheekh axmed oo hadlay wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo dadku su'aalo badan bay isweydiinayaan oo u baahan in loo sharaxo waxaa ka mid ah waxaan maqalnaa isdhexgalka geeska afrika wuxuu yahay naloo sharaxaan u baahannay midnimada gaarka ah ee Itoobiya iyo Eritrea iyo Soomaaliya oo aan wadamada geeska afrika kale ku jirin dhex maraysaa waxa ay tahay ciidamada Itoobiyaanka ay dalka soo galeen amisom ka tirsanayn mandate-kooda iyo waxay u soo galeen Eritrea ilaa maalintii xurriyadda qaadatay Afar baa xukuma annaguna 4 sanadoodba mar baan rabnaa in la isdoorto maxaan ku midoobi karnaa waraadha war ma haysaare madaxweyne farmaajo Faransiis buu ugu tacsiyay madaxweynaha Burundi war ma lamiisiyo waqti taxasbo dawada gufaa buu yiri talow war waxaad sheegtay ma naqaanee laakiin waxaan hubnaa in madaxweyne farmaajo uu ka tacsiyay madaxweynihii Burundi ee dhintay la faqanseen oo ugu tacsiyay aryaadaha la faqansa muga madaxweynuhu leeyahay allah u naxariistay gololeydan ka dhacday madaxweynuhu ku ilaabay wadad waalnaatiine tacsiyada inta kala leedahay war ma haysaane gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ganjaalkii nabad iyo nolol buu furay muga saadaad ku soo rogmada miyaa tiri ma lagu yaacay rabaa shaarkii commentiga yaa badan odaga ma loo dhaarsan yahay war Cabdi Xaashi runtu sheegay wuxuu yidhi doorashada intay khusaysaa ka wada hadasho war namadina run ma nabtee odaga run sheegay yiri war Cabdi Xaashi faci munaafaqada waa hor u dhaafay warka naga dhaxgelinine Cabdi Xaashi guddigu u magacaabay inay ka soo shaqeeyaan khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhaxeeya iyo arrimaha doorashooyinka war ma aysaana ku qataara bilaabato Cabdi Xaashi ku xigeenadiisii mid kamida ayaa lagu qataaray hadda waxa yiri gudoomiyaha Cabdi Xaashi xaroosaadka aqalka sare ku hor yimid war waxaan la yaabay xeerku Cabdi Xaashi garan waay ee mawlidku had u gartay war mawlidku had waxa la yiri saxaafadu ma aqoone madaxtooyaha u ballamisay war siday doontaba ha ahaatee weerar u dooyo waniinay bay ku soo xidhantay aryaadaha war ma haysiina madaxweyne Hirshabeelle waare xamar isku la kicayna ma yiri ma aasi garooway war
muushi iska dhigay aniga farmaajo isla dhacayna miyuu ka dhabeeyay dawladda waqti ha loogu daro ma yiri war ma fatahaadii webiga shabeellu ka hadlay war ma biixeeranadii ayuu sameeyey war lacagtii uu dhiibay miyuu yidhi dib ha laygu soo celiyo ma axmed madoobe qadka taleefanka kula hadlay war madaniya wacay aryadaha waa waalantiina warkayga dhex gelina madaxweyne waare waa kala wareegay allah ilaahay xaniintii uu aastay ayuu hadda la soo bax horta xaguu ku kala wareegay madaxweynuhu waa labada ma labadaa miyuu yidhi aryadaha waa waalantiina madaxweyne waare banaanbax farmaajo lagu taageerayay oo beledweyne laga abaabulay waa qaldantiina guryihiinna aadow yidhi oo mahaasow ku joojiyey kaaga darana go'aanka aqalka sare guddoomiye cabdi xaashe ka soo baxayna waa taageersanahow yidhi taasi waxay caddaynaysaa mar dambe inaan waara gareen la dhihi karin waryaada if waare iskala wareegoonin dakala wareegoonin of qoorqooran lafta garan iska minsuun hayehee berigana ma qoorqooraa suu ridayaa la keenay war lafta garaana mar hore suudgaadi iyonay tahay war madhow waxaa sugaysaan ku khataartii nabadii nool waara ama guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle ama ku-xigeenkiisa ku khataari doonaan waar madaxweynayaasha hore sheekh shariif iyo xasan sheekh warkoodii u dambeeyey salaad cali jeeli iyo cali maxamed geedi ma ka jawaabin war cali jinka ku jira wuxuu yidhi nabadii nool waxay xafiis ka furtay buu hoodle warkaa musabiixi moogya war madaxweyne farmaajo iyo horta xildhibaan firimbi midkee taageero badan hadda war anigu waxaan hubaa in firimbigii qaaliyoobay war firimbigu qaaliyoobay ogaa ma kobtii buush lagu tuuraa war nimayow abdhig baan idinka dhegayay dhegaysta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya tiktok bay samaysatay tiktok waxayna dhaheen biriis xarfaanayna soo fallow gareeya war maxadkii diblomaasiyadda miyaa tiktok loo bixiyey iga tag tibtob waaba jeclaho jallaata qaboobahay ahaa jirtay intaa lagu gadaa war wasaaradda arrimaha dibadda dayactir dib loogu dhisay ayaa ka socda war jubbaland iyo puntlandba waxay taageereen go'aanka aqalka sare iyo cabdi xaashi war wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo hadlay wuxuu yidhi wadahadalka soomaaliya diyaar baannu u nahay laakiin dadka filla soomaaliya madaxda ka ah ma aha dad mas-uuliyiina oo wadahadal lala furi karo yaa u sheegay warkaas tasawgaf maaha war waxaa la yidhi madaxnimadu xoog maahan xujo iyo shirqool maahan anaa xoolo badan maahan xeel iyo sir badan maahan xigmad gaara weeyaan war mas-uuliyadda sheegoyta madiidii hore ka dhagama jireen madaxdu hata ma war mas-uulnimiya caadkeedni yaqaan ma doontee maxaa adiga kuu diray aryadaha idinkoon isdaalin cumar idriis wuxuu yidhi how firiin baa yeeray faynaalkii inuu fahmaynin wow fiilaa firin bii yeeray faynaalkii inuu fahmaynin wow fiilaa firin bii yeeray faynaalkii inuu fahmaynin wow fiilaa firin bii yeera faynaalkii inuu fahmaynin wow fiilaa firin bii yeeray faynaalkii inuu fahmaynin wow fiilaa intaa lagu shiray beri baa la shida badanaa shidadhaan wax tareen badanaa xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shida badanaa shidadhaan wax tareen badanaa intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa
xildhibaan badanaa xildhibaan goboleed badanaa حقنا بروفيسور انتنا انجينير سنة كانت تتورد بدنا كلية راديو حقنا فرمشية انتنا فرمشية سنة كان شبار بدنا دعوة واحترم بدنا حقنا وفنان انتنا وفنان سنة كان مؤلف بدنا عفنات سنة كان بدنا انتنا وفنان حقنا وفنان سنة كان مؤلف بدنا عفنات سنة كان بدنا حقنا قرب جوب انتنا قرب جوب سنة كان قرب جوب بدنا قرب جوب حلدون بدنا حقنا قرب جوب انتنا قرب جوب سنة كان قرب جوب بدنا قرب جوب حلدون بدنا agaal lagu dilay inta lagu dhacay sanadkan dambiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa agaal lagu dilay inta lagu dhacay sanadkan dambiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa حقنا وقرون انتنا وادك سنة كان تشورو بدنا عشوران لأركين بدنا حقنا وادك انتنا وقرون سنة كان عشورو بدنا عشوران لأركين بدنا سيرنا واحترم بدنا كلية راديو xildhibaan goboleed badanaa عفنات سنة كان بدنا قرب جوج حلدون بدنا waa ku daba joognaa badanaa عشوران لأركين بدنا عشوران لأركين بدنا عشوران لأركين بدنا عشوران لأركين